مركلة iyo cooking with حفصة maanta waxaan samaynaynaa malaay maaragtay koran ku shiilaya iyo bataati macaan aan fries ka dhigayo malayga horeeto waataan maaragtay soo sameeyay foornada hoose aan ku sameeyay aad aa uga hesheen comment fiican aa kasoo bixiseen markaan waxaan samaynayaa malaygii oo nooc kaleeta ah koran ku shiilaya maasha allah aan ku leeyahay aad maaragtay yaabi doontid fudaydka loo karinaayo 6 daqiiqo qaadanaya isaga dhanba waxaan ku cunaynaa insha allah bataati macaanka annaga Soomaaliya hal siya u karsanaa oo biyo intaan ku karkarinaa bisbaasi wax ku cunaa wax la mid ama wadamadan mash potato laga dhigaa waa la jijibiya laakiin haddii aad barato noocan fries laga dhigayaa waxaan marinayaa xawaajiyaal yar yar toon maasha allah aan ku leeyahay ilmaha aad u jecel yihiin waxyaabaha packaging-ka oo la soo gado ayagoo diyaarka fries la soo gado asoo diyaar ah kana ilmaha uga fiican 10 times insha allah waxyaabaha maaragtay caafimaadkaaga horumarinayo ku dadaal frieskas packaging-ka waxaa ku jira saturated fat oo qofka bini'aadamka u fiicneen oo ilmaha yarka guriga jooga u fiicneen marka insha allah midkaan haddaa barataan fries dambeeto oo maaragtay bataati caadi ah laga sameeyo ma cuni doontaan bataati macaan ka dhigan doontaan ilmahana insha allah maaragtay waxyaabaha fiican oo caafimaadkooda horumarinayo in aan barno haddii aan nahay waalidiin mas'uul naga saaran marka insha allah fiirsada sida fudud loo samaynayo wixii talo iyo tusaale ana nala soo socodsiiya ma mahadsantihiin bilaabaneynaa waa fiiqeynaa haddaad doontid maaragtay si fiican u dhaqi kartaa adoon fiiqin aad dhuudhuubin kartaa jarjari kartaa maxaa yeelay qolofta laftirkeeda vitamin fiican ku jiro marka habeenkii aad rabta adiga iyo odayga inaa iscasuuntaan insha allah cashadan fudud oo maaragtay 15 daqiiqo gudaheed ku karaysa insha allah isku casuuma aaday u fududahay caafimaadkana ugu fiican tahay sida horeba idinku sheegay bataatigan ka faa'iideysta ilmaha loo kariyo wax aad u fudud saas u dheereynaysa yani aad ha u yaryaraynin maxaa yeelay aad hadda u yaryarayso macnaha ku jira sababta u waaweynay aad hadda u yaryarayso waxa dhacayo uu isku bajaq uu noqonayo isku dhaxdhaca marka wax yar oo fiican oo crispy ah inuu noqdo adag xoogaa hadda rabto aad ha u dhuudhuubinin insha allah saas u jarjaranaysa ayaan ku leeyahay isku dhamaatay carfiskaas ku dar marka insha allah filfil aniga ku sii daray filfisha iska daaya qaybtaas filfisha iska ilooba ku darin laakiin liinta iyo filfisha shiidan oo isku jirto oo dukaamada lagu gado haddaa heli karto ku darso haddii kaleetana filfil iyo liin dhanaan xataa ku kor miir insha allah waa kaasa waa isku dhamaatay filfishaas lee ka daa adiga haddaa especially a baby iyo ilmo yaryar aa siinayso filfishaas ka daa filfisha liinta ku jirta ku dar insha allah toon ku dar toonta aaday muhiim u tahay iyo cusbadaba labadaasba ku dar waxaan ku leeyahay ma cunaysid mar dambe vitamino aad u badanaa ku jiro ka faa'iideysta habeenkii la rabo oday in lagu qosliyo oo kariya habeen markaa rabtaan ilmihiina maaragtay inaad bartaan cunto healthy ah u sameeya waa wax aad u fiican familiga dhan maaragtay uu ka faa'iideysan karo cunto Soomaaliga wax qurux badan waaye sida aan markastaba u sheego maaragtay creative baa loo baahan yahay xoogaa inaan maaragtay bedelno waxyaabahaas aan u samayn jirnay oo waxaani aan cuni jirnay annagoo barayna ilmaheena waxaani wadankeena laga heli jiray inaan yacni qurxino waqti yar gelino hadda aniga ma waqti badan jikada kuma jiro maxaa yeelay ilmahaagaaba u baahan waqtigaas inaad geliso marka insha allah wax kasta sida ugu fudud aa u samayn karto isku day anigana waxyaabaha aan soo geliyo waxaa waaye wax aad u fudud marka fiirsada jikada uma baahna waqti badan inaad ku jirtid ilmahaaga waxyaabo kale ugu qaban kartaa waqtigaas foornadaa gelinaysaa 10 daqiiqo sugaysaa 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo malaygeena haddana diyaarsanaynaa oo waa filfishii waa toontii waa cusbadii waa xawaajigii buurbuurnaa intaas meeshan waa kusoo qorayaa insha allah marka intaas malayga si fiican isaga dhaq jarjar maxaa yeelay marka saas aad ha u jarjarin yacni dildilaaci markaad dildilaaciso xawaajigaasoo dhanaa meelahaas gelaayo si fiican ugu masaajee kulli marmari labada dhinacba markaa saas aad u dildilaaciso xawaajiga meelahaas ku shushub korkana ka mari meesha yaroo caloosha jeexanna ka mari waxaan ku leeyahay maasha allah 10 daqiiqaan ku leeyahay waxaanoo dhan diyaaray kuugu tahay ka waran arrintaas waxyaabo fududaa loo baahan yahay maxaa yeelay adigana inaa isdaalisid looma baahna maaragtay ilmahaagana waqtiga inaad ka qaadid jikada adoo ku jiro hadhow markaa kasoo baxdidna ilmihii waqtiga uma haysid soo maaha marka insha allah waxyaabaha aan soo geliya badanaa waa wax 10 daqiiqa ka faa'iideysta markaasaa qurux malaygaas marka la shiilo macaan marmar ma aragtay waa la isaga tuurtaa kii foornada ma aragtay aan soo geliyana waa aragteen
marka ka faa'iidaysta insha allah ilmaheena inaan barno qofka markii maaragtay cuntadiisa uu yaqaano uu dhaqankiisana baran karaa mas-uula naga saaran ilmaha inaan barno cuntadeena dhaqankeena waaye marka insha allah wax ay ku faani karaan ay noqoto hadhowto what's your maaragtay national dish haddii la dhaho waa inay yaqaanaan ilmaha waddankan qof kasta maaragtay waddankiisa cuntadiisa wuu ku faanaa annagana waa inaan la imaanaa miiska wax maaragtay aan ku faani karno cunto soomaali aan ku faani karno afrikaanka kaleetaan ka liidanaa cuntadooda waa ku faanaan maasha allah cuntadeennana waa aragteen carafta markii meelaha la geeyo in lagu weydiinayo maxaa kusoo dartay lagu leeyahay marka malaayga saas u shiil saliidda markay kululaatay insha allah dabka dambe shido dabka dambe inaad shidataan muhiim waayo maxaa yeele guriga ilmo iyo waxbaa jooga xataa qofka hadduusan wax kariska aqoonin oo wiilal iyo ay yihiin saliidda waa kugu soo daadan kartaa insha allah saxanka maaragta malaayga markaad jarjaraayeen hilibka iyo malaayga baha alwaax gooni ah u isticmaalaa oo alwaaxyada iskuma qaso marka insha allah alwaax gooni ah oo chickenka iyo hilibka iyo markaa jarjaranayso mid maaragta gooni ah u isticmaal maxaa yeelay bacteriadaas ma la rabo inay wareegto wakaasaa malaaygiyo diyaar ii ah 6 daqiiqo keliya ku jiray markaas qurux maahano maasha allah bataatigana wakaasaa uu kasoo dhacay 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo ku jiray waxa dhan waxaan ku leeyahay 2 dabaa u kala saari kartaa maasha allah qatar malaab qatar beautiful soo maaha markaasaa cunto soomaali yaa qurux haddana koobabkaasaan ku ridanaynaa waxaa halkaas iigu jira maaragtay bahasha ansalaatada korka looga shubto ranchiga ay dhahaan marka adiga taa jeceshahay ku daardaaro haddaad doonti garoorka oo aan idin tusay hore idin tusay garoorkii kabsar caleenta laisku shiidaayo samayso haddaa rabto ku cun tan aniga hadda ranchi waayo ansalaatadaada yar waxaan ku leeyahay casho qatar ma tahay meeshaas odayga si fiican uu qoslaa habeenkaas soo maaha iyo ilmaha iyo kulli maasha allah maasha allah liinta haddaa ku kormeertid malaayga intuu kulul yahay aad maaragtay dhadhankuu sii fiicnaynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subscribe gareeya insha allah wakaasaa cooking with xafsa waa idin shaqaynaysaa waa ujeedaan marka subscribe gareeya caafimaadka ha lagu dadaalo insha allah assalaamu calaykum